madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa guddi u saaray in ay soo baaraan arrinta Ikraan Tahliil Faarax oo sababtay khilaaf aad u adag oo u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. dowladda federaalka Soomaaliya waxay labadii sano ee la soo dhaafay magacawday guddiyo kala duwan si ay u soo baaraan xaalado abuuray hadalhayn badan oo bulshada dhexdeeda saameyn ku lahaa. Guddiyadaas ayaan dib loo maqlin mana aysan soo bandhigin wixii ka soo baxay baaritaanadoodii loo diray. Daahir Maxamuud Geelle oo horaantii bishan ka hadlayay arrimaha guddiyada la magacaabo ayaa waxa uu yiri marka arrinta la marin habaabinayo waxaa la dhahaa guddi ayaa loo saarayaa. aniga arrinka waaya arag baan u ahay guddiyo badan oo la iska daba sameeyay ayaan jirin oo wax xaqiiqo ah aan keenin. marka waxaan rabnaa in guddi loo saaro aysan arrinta ku ekaanin ayuu yiri Daahir Maxamuud Geelle. arrimaha guddiyada loo saaray waxaa ka mid ah dhimashadii Allah u naxariistay Cabbaas Siraaji oo ahaa wasiir iyo xildhibaan oo ugu dilay magaalada Muqdisho. guddigaas weli wax cad ma aysan ka keenin. sidoo kale kadib markii la dilay gudoomiyihii degmada Hodan ee magaalada Muqdisho Cabdixakiin Dhagajoon bishii January ee sanadkan dawladdu waxay magacawday guddi baaritaan balse weli xaqiiq raadinta ma aysan ka soo warcelinin. haddii aan eegno qaar ka mid ah guddiyadaasi waxaa ka mid ahaa guddigii loo saaray xaruntii gobolka Banaadir bishii Juulaay ee sanadkii 2019 wuxuu qarax weyn ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir waxaana ku dhintay gudoomiyihii gobolka iyo qaar ka mid ah agaasimayaashiisii. Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Yariisow oo dhaawacmay ayaa loo qaaday dalka Qatar halkaas ayuuna ku geeriyooday gudoomiyihii maamulka gobolka Banaadir iyo duqii caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. kadib dawladdu waxay u saartay guddi baaritaan ku sameeyay qaraxaas balse wixii ka soo baxay arrintaasi ayaan dadka la wadaagin. waxaa jira warar sheegaya in qayb ka mid ah baaritaanka wixii ka soo baxay loo gudbiyay mas'uuliyiinta dalka. qaraxa waxaa ku dhintay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyayaal agaasimayaal iyo sidoo kale dad kale oo ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir. dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarka waxayna tilmaameen in bartilmaameedkoodu uu ahaa wakiilka xogayaha qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan oo maalinta booqasho ku tagay xarunta gobolka Banaadir. arrinta labaad ee guddiga loo saaray isla markaana weli aan wax jawaab laga helin ayaa waxa ay tahay askartii loo diray dalka Eritrea kadib markii ay dhaceen isu soo baxyo ay sameeyeen dad kala duwan iyo waalidiin ka cabanayay in carruurtooda loo qaaday dalka Eritrea kadibna ay ka dagaalameen Ethiopia. waxaa loo saaray guddi soo baara arrintaas. Juulaay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa magacaabay guddi soo baara cabashada waalidiintaas. waxay dadkaasi sheegeen inaysan war iyo wacaal ka helin carruurtoodii oo ay sheegeen in tababar loogu diray dalka Eritrea. guddigan oo ka kooban ilaa 5 xubnood ayaa la sheegay in ay u kuurgeli doonaan xaaladda markaasi dhalinyarada Soomaalida ee tababarka loogu qaaday dalka Eritrea ayaa weli soo saarin warbixinta baaritaankooda. dhacdadii 19 February rabshadihii 19 February waxay sababeen in magaalada Muqdisho ay kala xiranto. maalintaas waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay isu soo bax ay hogaaminayeen qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha oo diidanaa dib u dhaca doorashada dalka. musharaxiintaas ayaa sheegay in rasaas lagu riday ayna kala carareen qaarkoodna oo saxaafadda la hadlay waxa ay sheegeen in la damacsanaa in la dilo musharaxiinta. khilaafkaas oo aad u cakirmay wuxuu sababay in ciidamo gadoodsan ay magaalada Muqdisho soo galaan balse markii dambe waxaa kulmay ra'iisul wasaare Roble iyo musharaxiinta waxayna isku raaceen in la dhiso guddi soo baara dhacdadii 19 February. sidoo kale habeenkii ka horreeyay wuxuu weerar ka dhacay hotel ay deganaayeen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed. guddigaas oo ahaa mid madax bannaan oo ka koobnaa 6 xubnood ayaan weli soo bandhigin wixii ka soo baxay baaritaankii ay sameeyeen. waa guddi isku dhafa oo ka kala socday mucaaradka iyo dawladda. afduubkii Ikraan Tahliil Faarax bil kadib markii la waayay Ikraan Tahliil Faarax xeer ilaalinta guud ee ciidamada qalabka sida ayaa guddi u saaray arrintaas si ay u soo baaraan. General Cabdullaahi Buule Kami oo ah xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa magacaabay 3 sargaal oo ka kala socda xafiiska xeer ilaalinta booliiska iyo nabad sugidda si ay u soo baaraan kiiska Ikraan Tahliil Faarax. xilligaas waalidiinteeda iyo qaar ka mid ah siyaasiyiintu waxay ku tuhmayeen in hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay ku dhex maqan tahay gabadhaas oo markay shaqaynaysay xafiiska Yariisow intii uu ahaa gudoomiyaha Banaadir. guddigaas weli lagama hayo warbixin ku saabsan baaritaankooda balse dhawaan ayay nisa shaacisay in Al-Shabaab ay dileen Ikraan taasoo ururka iyo waalidiinteeduba ay beeniyeen. arrinta Ikraan ayaa khilaaf xoogan ka dhex abuurtay labada xafiis ee dalka ugu sarreeya taasoo weli taagan waxayna sababtay in isbedelo iska soo horjeeda ay sameeyaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo ku kala socday
nisa iyo wasaaradda amniga gudaha. Waxaa muddo bilo ka badan nolol iyo geeri lagu laayahay Ikraan Tahliil Faarax oo ka shaqeynaysay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, waxaana gabadhan markii ugu dambeysay gurigeeda ka baxday 26 Juun ee sanadkan. Gabadhan ayaan kiiskeeda hadalhayn badan abuuray, waxaana ehelada gabadhan xildhibaano iyo siyaasiyiin kalaba sheegeen in Ikraan ku tuhmayaan in ay afduubteen ama ay dileen saraakiil sarsare oo ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya. Jenaraal Cabdullaahi Buule Kamey ayaa faray taliska ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA inay kala shaqeeyaan saraakiisha magacaaban wada kasta oo lagu gaari karo danta cadaaladda ee Ikraan. Xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa sidoo kale aqbalay furashada galdacwadeed ay u soo gudbisteen ehelada Ikraan Tahliil Faarax kuwa oo tuhmaya in maqnaashaha gabadhoodu taliska NISA ku lug leeyihiin. Haddaba guddiga uu dhawaan soo magacaabay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muxuu ka bedelan yahay guddiyadii hore, maxayse ku soo kordhi karaan arrinta kiiska Ikraan Tahliil Faarax? Arrinta ugu weyn ee meesha taalla ayaa waxa ay tahay xubinta ka imaanaysa hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda Soomaaliya ee NISA yaa soo magacaabaya. Ma taliyihii uu magacaabay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee Yaasiin Faray mise taliyaha uu magacaabay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee Bashiir Goobe?